nacam week kasta waxaa la duugayay ugu yara 3 4 5 ala duugay the end of the week sabti markii la gaaro 5 canug waa la duugay marka anigi waxay ugu noqotay shoogay ugu noqotay aniga hal canug loo oynayo oo aan arkay maalin walba ilmihii la dilaayo habeenada kamid ah anigoo maaragtay mideynta imid ayaan waxaan arkay Dixon aan streetkeedan ku socday waxaan arkay ilmo dhinaca kale u cararay xabadana waa maqlay runtii meeshan waxaan ku noqday shock nacam waxay noqotay canuga habeenkaas lagu dilay 16 jir ah meesha lagu dilay ilmihii kale dhinaca kale u carareen nacam subaxii meeshii basketball lagu ciyaara nacam kama ilmihii dhiigood inaysan lahayn wax jixinjixa so wixii badda aniga waxay ku ahayd very close space ko sheekadu isku ahayd so anigu activistan ma ahayn hooyo guri iska joogto caruurteeda iska korsataan ahaa so markay arintani ay igu dhacday inankaygiyo masaajid ka soo baxay oo salaadii casar soo tukaday oo ka soo baxay oo caano u diranayo telefoonka ugu jiro ayaa xaafadda laga raacay ciyaalka xaafadda unbaa yu ka tirsan yahay calashaan xaafaddu ku dhashay waa la daba raacay masaajidkii baa lagu sugayay ilaa intii uu ka soo baxayay waa la daba galay inan kale oo ay isku cashar qaadanayeen baa uu soo qaadayay markuu soo aantaanu tagin uu u dhadhow yahay meeshii ayaa dhexda lagu helay so drive by shooting bay ahayd so marka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان كسونا هاي مقالة تورنتو دلك كندا guud ahaan wadamada reer galbeedka waxa jira dhibaatooyin haysta jaaliyadaha Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada iyadoo ay jirto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan dhibaatooyin u gala haday noqoto jeelal iyo haday noqoto isdilba Toronto ama guud ahaan Canada waxa ay la mid tahay dhibaatooyinka haysta jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool wadamada galbeedka iminka waxa aanu la joognaa hooyooyin Soomaaliyeed oo ku midoobay urur la yiraahdo mideynta hooyooyinkan oo qaarkood caruur ay dhaleen siyaabo kala duwan ay u dhinteen oo loo dilay oo aynu bal arrimahaas insha Allah aynu ka wada sheekaysan doono aad iyo aad ayadu mahadsantihiin Shamso Maxamed Cilmi iyo Kawthar Ali Ismaaciil iyo Sahro Geele horta marka hore soo dhawaada waana mahadsantihiin inaad ururkiina nagu casuunteen waad madantihiin imaanshaad noo timaadeen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ma sha Allah soo dhawaada wallahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida anoogu timaadeen soo dhawaada akule anagoo jecelba wixii nagu dhacay iyo arimaheenaba qoladii inaga qoraysa ama naga duubayso inaan warbixin kooban oo wanaagsan aan siino waana mahadsantihiin Shamso hadii aan adiga kugu bilaabo bal marka hore waxaad nooga warantaa ururkan mideynta waxa uu idin qabto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waa mahadsan tahay ururkan mideynta wuxuu leeyahay programme aad u tiro badan waana urur soo jireen ah oo ilaa iyo 30 sano soo jiray ururkaneetana markii la bilaabayna waxyaabihii lagu bilaabay ama baahidii markaas jirto waxay ahayd dadkeenii oo markaas wadankaneeta markaan nimid ay ahayd la yiraahdo madax furasho amal oo ah qofkii yimaada because Soomaalina waa nahay iyo Afghanistanka ayay ku dhacday dhibaatooyinka ah oo la yiraahdo aqoonsigiina keena marka programka communitygan marka siyaabahaas ayuu u istaagay in uu part ka noqdo in la yiraahdo Soomaalinimada caday marka la yiraahdo in uu maaragtay cadeyntaasiyada uu la yimaado ayna helaan dadka Soomaalida ah meel ay markaas ay ku soo hirtaan Shamso ahaan adiga wiil ayaa laga dilay Allah u naxariisto samriya iimaan Ilaahay dhamaanteen baa inaga siiyo sidee wax u dhaceen marka hore toole aniga waxaan deganahay tuulo oo la yiraahdo Hamilton wiilkayga Xuseen Allah yarxam raaximiin wuxuu iiga tagay magaalada la yiraahdo Vancouver ayuu aaday Vancouverna wuxuu aaday markaas shaqo canugana waa canug halkan ku dhashay
oo ku barbaaray weligiisna uusan meel aan wadankan ahayn aan uga bixin marka waxaa dhacday shaqadii uu xagga u raadsaday galbaha ka mid ah bisha August 17keedii 5 o'clock galabnimadeedii ayuu wuxuu tagay meel yar oo pizza iyo lagu shaahaynayo pizzadii markuu tagay adiga gabdho yaryar uu la sheekaystay gabdho cadaan ah marka nin ayaa gadaal inta uga yimid madaxa wax uga dhuftay because markaasita waxa loo dilo waxay ahayd kaliya haatay inuu madow yahay gabdhahuna ay cadaan yihiin that's it cunsuriyad markaas ay ahayd cunsurinimadaasita ayaa loo dilay kiiskiisii xaguu ku dambeeyey booliiskii maxay qabteen dadkii dilay ma la qabtay dadkii dilay horta asagaaba iska yimidba nin cadaan uu ahaa wax laga qabtayna ma lahan nacmana joogin meeshaaseeto less than 1 minute oo meesha booliiska uu joogay caradii aan carooday markaaseeto Vancouver lawyer-aan qabsaday markii hore case-kayga way xireen lawyer-aan qabsaday in case-kii la furo lawyer-kii haddana waa lala hadlay lawyer-kii wuxuu ii soo istaajiyay inuu yiraahdo waxa ma ka qaban karo case-kan waa la xiray oo maxkamadda xirtay so meel kale toolo oon u dacwoodo runtii waa aqoon waaye waxaan aadana aan markaas waxaan u ahaa hooyo activist ah marka magaaladayda Hamilton ayaan kula noqday caradeydii waxaan bilaabay marka activistnimadeedii inaan iraahdo waa banaan baxaya aan iraahdo booraraan qaadanayna waa ordaynaa ilaa iyo Ottawa tagayna marka kuwii oo activistayaasha ahaayoon isla shaqaynaynay qaar Vancouver ka yimaadeen qaar Edmonton ka yimaadeen waa niman cadaan marka waxay yiraahdeen soo diyaaraan kuulanahay laakiin hal waxaan ka rabnaa maxay taa waxa iga rabtaan waxaan ka rabnaa hal organization oo Soomaali ah base Soomaali ah in aad maaragtay aad ku tiirsan tahay because marka la lugaynayo Hamilton Burlington waxaa ku xiga Oakville waxaa ku xigta Mississauga Toronto markaas inta meelahaas oo dhan in Soomaali ay ka soo raacdo marka magaalada Hamilton markaas organization oo Soomaali ah oo ka dhisana markaas ma jirin marka waxaa dhacday in organizationadii aan raadiyo Toronto aan imaado organization kasta aan maartay albaabada garaaco nacam qaar aan ku qancin adiga alafino waxa dhacday mideynta waxa ii keenay wiil walaalkay oo ka sameeysanay guryaha maartay la dhahayo ina mas'uul ka noqdo kala tool naagtiisu wuxuu rabay inuu mas'uul ka noqdo oo Soomaaliya uu ka soo gado meeshaan soo raacay ana soo waday Toronto keenay waxaan la kulmay marka organization kaaneta yarka xukuma oo maaragtay executive director ka ah Mahad Ali Yusuf markaan la kulmay ayaan meeshaan hadal isku tuurtuuranay markaan hadalada isku tuurtuuranay Soomaalidiina waxa qabataan malaba maxaa adiga qabanaysaa aniga dhibaatadaana ugu dhacday saana ugu dhacday maantana waxa la iga rabaa waxa waay in aan Soomaali organize gareysan aan helo marka oo ugu qoslay markaas wuxuu yiri maxaa dambe what's next waa banaan baxday maxaa ku soo xiga maxaa ku xiga waa booraraan qaadanay waa qeylqeylinay maxaa kaloo sameysay wallahi wuxuu weydiiyay su'aalo oo very tough ah oo markaas aan ka jawaabi waayo waxa soo xoqxoqdo marka wuxuu yiri adiga waa ku jeedaa yaa way qofka kula socdo marka odayga markaas meelaha jooga markaas waxa ari odayga ugu dhow asagana waa kan iga sii cararaay oo mar rabo in maaragtay boorar iyo la tago laakiin sida kale loo dagaalamay diyaar u yahay marka wuxuu ugu dhaliyay waxay ahayd wuxuu yiri dhowr jeer imo organizationka markaan imid runtii waxa aan ka helay waxay ahayd program la dhahayo youth turnaround youth turnaround kaasatan waxay ahayd waxaan ku darsaday 160 degree nacam youth turnaround maxaa waaye markaaseeto shan qabi shan daay ahayd nacam week kasta waxaa la duubayay ugu yara 3 4 5 ala duugay the end of the week sabti markii la gaaro shan waa la duugay marka
anigi waxay ugu noqotay shoogay ugu noqotay aniga hal canug loo oynayo oo aan arkay maalin walbaba ilmihii la dilaayo habeenada kamid ah anigoo maaragtay mideynta imid ayaan waxaan arkay Dixon aan streetkeedaan ku socday waxaan arkay ilmo dhinaca kale u cararay xabadana waa maqlay runtii meeshaan waxaan ku noqday shoog nacam waxay noqotay canuga habeenkaas lagu dilay 16 jir ah meesha lagu dilay ilmihii kale dhinaca kale u carareen nacam subaxii meeshii basketball lagu ciyaaraa nacam kama ilmihii dhiigood inaysan lahayn wax jixinjixa markaan haddana kula soo noqday mahad waxaan ku iri mahad this is not working waxaan u baahanahay wax shaqeynaya marka organization kaneeto wuxuu sameeyaa waxa waaye waxay dhahaan youth outreach worker ay leeyihiin ilmihii banaanka jira youth gangs way leeyihiin waxay leeyihiin oo kale toole youth maxaa lahaa turn round kaneeto aan ku sheegayo ilmaha gangska inta galeen rabaan inay ka baxaan ay loo soo celiyo nacam waxyaabo very interested ah markaas aniga ay dhiiri gelisay aan ku soo biiray marka على أي حال ماشي كبلوني ماشي مركان كبلوني وحانر مركا إن هاو ضدكني ودي رجلين كرناي إني توقع نعم قابة وحواي دبعتدي سي مليار وكل عبرينها هويو maadaama waa tahay ilmaheediina laga dilay ma dareensan tahay in ururkani isbedel kugu sameeyay dareenkaaga isbedel ma ahane waxyaabo badan aan ka bartay nood isbedel kaliya haatay horta horeeto number 1 habka oo ama booliiska loola hadlo ama lawyeerinta loola hadlo ama other dadkan oo more professionals ama MP da ama dadka siyaasiyiinta ah sida loola hadlo waa aan bartay waxaan kale toolo ku dhiiraday waxay tahay aniga markayga horena activistan ahaasan kuugu soo sheegay nacam inaan hadana public ka hadlo aan hadana ku dhiiraday way ugu dhiirigeliyeen inaan ka hadlo because waxa waaye hooyo kale markaas soo baxaysa ma jirin oo ilmaheeda laga dilay كوثر aad u mahadsan tahay soona dhawow bal Kawthar waxaad iga sheekaysaa adiga sida ay wax u dhaceen laba wiil ayaa laga dilay alla samir hay naga wada siiyo dhamaanteenba waa arin culus xilligii la dilay iyo say wax u dhaceen time ku wuxuu ahaa 2019kii iyo 2021kii هذا سنة دي بربع ودحيسي so وحي بدأني وحي واحد very close space كوشة كده سكوا واحد so أنا واكتفيست أنا ما نهاين هو يجوريس كشوكتو عروتي ديسك كورستانها so مركي أرنتني أي يود عذي إن كيجيو مساجد كصوب حي أو صلاة عصر صوت كذي أو كصوب حي oon caano u diranayo in telefoonka ugu jiro ayaa xaafadda laga raacay jas iyalka xaafadda unba uu ka tirsan yahay calashaan xaafaddu ku dhashay waa la daba raacay masaajidkii baa lagu sugayay ilaa intii uu ka soo baxayay waa la daba galay inan kale oo ay isku cashar qaadanayeen baa uu soo qaadayay markuu soo aantaanu tagin uu u dhadhow yahay meeshii ayaa dhexda lagu helay so drive by shooting bay ahayd so marka marka koox gaari wadata uma dabar galashay ha sugayay marka saasay ku dhacday wiilka kalena say wax u dhaceen wiilka kalena isagana saas oo kale guriga isagoo ka soo baxay oo
aroortii oo dhan wuu soo shaqaynay wuu maqnaa marka qola ka qaadatay baabuurkiisa marka maxaan dhadaayay kii ka qaatay baabuurku sugayay ayaa u yimi marka warna mar juice baynu soo qaadanaynaa marka way baxeen qaar un baa dibadda eriyada ciyaalka la iska ugaarsadaa halkaas oo kale qaar baa u taagnaa isaga looma taagnayn qofkii dhalinyaro ah oo xaafadda ka soo baxaya ayay u taagnaayeen soo marka way daba galeen markay arkeen labadan oo soo baxaya way daba galeen isna saasoo kasileeg wax lagu diro shooting sahro aad iyo aad ayaad mahadsantahay sahro geele adiga cunug ayaa laga dhaawacay wayna u iman doonaa maxaad isleedahay waa maxay dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed in istisha ama in dabadaba laga dilo in ay u badnayd in muddo ah maxaa kalifiba israadeen markii ururkan midaynta aad sheekaysateen ee aad wax isweydiiseen booliiska xitaa la hadasheen waa maadsantaa walaal waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan aad i weydiisay annaga dhibaatooyinkaas oo dhan waxaan u malaynay haddaan hooyooyinka nahay ee aan ka shirnay aan wada fariisanay inay dhibaatadaas xooggeeda nooga imaanaysay dhinaca booliiska waayo ayagaa ku lug lahaa waxyaabaha dhacaayo oo dhan booliiska oo ilmahaas 24 saac ayagaa ku dhex jiray annagii hooyooyinka oo xaafadaha buuxno oo joogno maanta kaliya waxaad arkay daaqadaada hadaa istaagto 2 3 4 5 gaari oo booliis saaran yahay kolkaasaan raawir booliiska maxaafadina wax uga jeednay maxay qabanayaan intaas waxay ku larnaayeen annaga hooyooyinkana aan ka warqabin ilmaheena ilmaha qaarkood oo loo dhiibi jiray waxyaabo ay gadgadaan oo dhibaato u keenayo markuu cunugi wixii uu gadgadahayo lacag tiro badan intuu ka helo asaga ama xoolihii uu cuno ama aan kurka u geen waayo cidii u keentay kuwa kale oo isla asaga dadkiisa oo Soomaali ah lagu dalbanayo ay masana saas isu dilayaan markii dambe hooyooyinka annaga laftirkeena markaan u dhabagalnay oon ogaanay inay dhibaatadan iyo xooggeeda nooga socoto dhinaca booliiska ayay waxay noqotay inaan wada shirno meel fariisano niraahdo see dhibaatadan ilmaheena ay ku wada dhex jiraan maalin kastana aan 2 3 u duugayno see haddaan hooyooyinkana uga bixi karna adiga wiil ayaa laga dhaawacay iminka sidoo yahay see wax u dhacanse والله walaalo habeenkii maray taasaqda dhexe waliba around 1 o'clock habeenimo anoo iska hurdahayo aan waxaan maqlaa gabar le gurigeyga gadaashiisa yarkeyga liibaana la dhahaa aan ku leeyahay aniga halkaas wiila hadda leeyahay ilaaha wax leh marka hal waxna xataa intay ii timaada aayar albaabka ii garaacdo wiilkii waa la dilay imaysan dhine saaray liibaan dhimaye ee meel fog ka soo bilowday markaas waxaan leeyahay hurdada aan ka soo makalaalahay wax adiga hadda ilaa muddo 5 sano laga joogo inta hurdada ka soo makalaalahay ilaahay una aniga wuxuu igu toosiyay inaan iraahdo xasbunallahu wa ni'mal wakiil حسبنا الله ونعم الوكيل وعرر قبل يا الباب كفر هدان كفر وحي ترسار ويسعر ليبان دمي أسي ويلا إسدلي وانا إسقرب يالان إلا كاسا وحوتي مدي دي وكان كل دفتي مركاسو ودناها يسنببك الله بضبو وكدري كيا أنا قد لنا مدي دي وانتو إسكساري وصنا الله بضا كدري ودناها يسنببك labadoodi midna xaqu yaala hadaan soo carani kaba ma wato aan kula wahabeen barki labadoodi ninba meelu yaala jaag gabdha yar gabdhahan yar ko teenage-ka aaba qaarkood korka mid ay ku haysaa wiilkeyga oo jaa booliiseeba ugu yeereenbo isla markiiba 2 ambulance timid waxaan ku leeyahay ilmii maba loo dhawaan karo waa aragtay calaamadee meesha ku xireen labadiiba qaateen oo la tageen isbitaalka yaa la dhigay isbitaalka hadii la dhigay wiilash dadka caadiga oo isdilo ayaga way ka duunaayeen waayo qofka hal dambi uu galaa ama victim uu noqdaa ama murder uu noqdaa inuu wax dilay in la dilo Soomaa labadooda waxa lagu xukumay nin kasta waa victim waana murder waxna uu dilo waana la dilay ilaa sariirihi ayagoo ku jiro oo wada kooma ku jiro ee lugi biro loogaga xiray waxaana loo diiday hooyo cunugeedii halkaas ku xiran yahay ee loo diiday inay aragto
si kale booliiska waxay dhaheen waayo waxaa yimid meeshaan ma ahan booliiska caadiga ah waxaa loo yeeray booliiska jeelasha because waxaa layidhi idinkaa shaqo ku leh booliiska jeelashan wuxuu yidhi ilaa aad jeelka tagto ee aad ka soo qaadato warqadaad cunugaaga ku fiirin karto waana 20 minute waxaan jeelkuu aadaa jeelka xaguu ku yaala 20 minutekaas markaad soo qaadataa cunugaaga arki kartaa 20 minutekii wiilkayga iyo wiilkii isdilane waa ciyaal isku xaafadoo saaxiibo ahaa wallaahi jeelkiiaan kuwii kale hooyadood joogin wiilkayga isdileen ilmihii anaa gaari ku qaadayay oo jeelka geynahaya oo warqadaasna la soo siinaya 20 minute bas intaan ku fiirino aan kaga dhaqaaqayni ilaahay aniga afkayga laga joojin waaye xasbunallah wa nicmal wakiilan ilaahay wuxuu xugmo wiilashaas inay hal wiil kaliya la qalo wadnahoodii iyo sanbabadoodii wixii dhan la tolo mar allaala wiigi markuu dhammaadane ilaahay labadii wiilbo nin kasta uu yiraaho hooyo waar ismire haw ismire mire is okay kii kale hooyo haw isliibaan laba nimoo saaxiibe waxba isku qaaday ilaahay amarkiisa labadii wiilbo way caafimaadeen askartiyaa jiidatay xabsiyaa masana la sii dhigay xabsigaa layidhi xataa maaragta hiilinka soo kabsashada iyo raysashada xabsiga dhexdooda aa loogu sameynaya yuusufow magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Canada waxaa ka jirta dhibaato weyn oo dhinaca dhalinyarada ah dhalinyaro badanna ama oo Soomaaliyeed ayaa istilay qaarkood Jamaican ayay istileen bal dhibaatada oo adigana si gooniya ku taabatay bal marka hore guud ahaan anooga waran mar kale mahadsanid runtii waxaan anaga dadkii ugu horeeyay berigii la soo qaxay ee dawladnimadii dhuntay wadankan yimid waana dareemi kartaa qof markuu yimaado meel uu ku cusub yahay nimankii aan u nimid oo aan filaynay inaan naxariis iyo soo dhaweyn kala kulanana markaas sidii aniga hadda aan u arko namaysan soo dhaweynin haddii aan deegaanka kale ka hadlo waxayna dejiyeen dad baaba'san meelaha ay degaan sida la yiraahdo guryahaas dawladda oo meel kasta ku yaalaan haddaad tagto London oo kale waxaad arkaysaa Neasden iyo Harlesden oo kale halkan oo kale waxaad arkaysaa meelo kale guri dawladda Mareykanka haddaad tagto ka daran waxayna dejiyeen meel baaba'san uusan qafna u qalmin inuu dego waxay kale nagu abuureen system la yiraahdo welfare laba arinayna bareen meelna ceer ka qaadano dawladdaana deganaano marka waxaan ku dhalnay caruurtii ku kortay systemkaas waxay ku daydeen dadkii environmentgaas deganaa markii dambe oo adigu ay waqti qaadatay kadib aan ogaanay wax badan Soomaalida wax badan waa uga halaabeen wax badan waa uga hagaageen caruur runtii waxaa jira oo jaamacada ka baxay dhaqaatiir ah looyara ah aan dhib qabin dhanka kalena waa jiraan caruur badan oo Soomaaliyeed oo ilaa iyo haddii aan iraado 500 ilaa iyo 400 oo wiil inay magaaladan ku dhinteen sanadii la soo dhaafay kuwaasoo maaragtay dilal qorshaysan loo geystay oo systemka aan u nimid ay u dhiibeen dhexdooda isugu dhiibeen hub ilan wadan dhan oo system jiro oo dawlad jiro qaf ma qaadan karo qori ama hub ma qaadan karo systematigaas oo ka mid yahay deegaankii welfarekii dilalkii waxaasoo dhan dadkii aan maaragtay ugu nimid halkan oo aanan ka helin wax maaragtay caawinaada wiilka kalena say wax u dhaceen wiilka kalena isagana saasoo kale guriga isagoo ka soo baxay oo aroortii oo dhan uu soo shaqaynay uu maqnaa marka qola ka qaadatay baabuurkiisa marka maxaan dhadaayay kii ka qaatay baabuurku sugayay ayaa u yimi marka warna mar juice baynu soo qaadanaynaa marka way baxeen qaar un baa dibadda eriyada ciyaalka la iska ugaarsadaa halkaasoo kale qaar baa u taagnaa isaga looma taagnayn qofkii dhalinyaro ah oo xaafadda ka soo baxaya ayay u taagnaayeen soo marka way daba galeen markay arkeen labadan oo soo baxaya way daba galeen isna saasoo kale wax lagu diro shooting baabuurka dhexdiisa waa tahay Shamso haddii aan adiga kugu soo noqdo waxaad ii sheegtay in aad booliiska magaalada Toronto aad la samaysateen heshiis isfaham bal faahfaahin adiga soo koobaya nooga sheeg bismillah
waxaan horta annaga nahay hooyooyinka la yiraahdo mending the crack on the sky oo ah waa rag tashaday waa gabay ku jira gabay Soomaaliyeed waaye dad tashaday waa tuli karaan cirka taaka cirdilaa taaka labadeeda waxa aan sameeyno waxa waaye mar sidii oo abay sahran ku sheegtay Kowsarna ku sheegtay markii dhibaatada dhacdo waxaan la kulanaa booliiska isfahan ma jiro mar walbaana waxay nagu soo riixayaan problemka adinka waaye isa sheega ilmihiinana soo sheega marka waxaan marka kala garan weynay waxa ma shaqadooda mase annaga shaqadeena waaye in anug wax dilay aan soo raadino oo aan keenno annaga shaqadeena miya mase waa shaqada booliiska marka waan fariisanay horta hooyooyinkaanetana midda aan meesha aan maanta joogno aan ku soo gaarno waxay ahayd sabti walba subaxii aroortii 6 o'clock ayaan shiri jirnay salaada subax salaamu calaykum waa wada fariisan jirnay annagoo ka badan almost konton hooyo waxaan go'aan ku gaarnay waxay ahayd in aan sameysano heshiiskaasi isfaam so booliiska waxa ay diidaanba waxaan sameynay heshiiskaasito oo memorandum of understanding aan isfahamkaasito oo ah inaan iyaga la shaqeyno number 1 inaan ka saarno communitygeena caqabadaha ah in aysan ayaga iyo booliiska isfahmi karin waxa marka ku jirta waxay ahayd ayaga inay transparency ay noo noqdaan labo because booliiska waxa ay sheegtay maray research sameeyeen xaafadaha adiga ma taqaanid laakiin xaafado waxaa jira oo Finch iyo Jane la yiraahdo oo dil badan ka dhici jiray Lawrence hay dil badan ka dhaca waxay dhaheen xaafadahaasi waa 100% safe so how come is 100% safe markii xaafadaasi xabadaha ka dhacayaan magaciisa ka dhacayaan where's that research kaasay inta ka keentay baaritaankaas ma inta ka keentay sad ku ogaateen waa soo baarnay yaad ka soo baarteen ma dadka meesha degan mise dadka maal qabeenka ahaad ka soo baarteen so waxaan marka aan heshiiskaasi aan niri waxaan sameynay anti racism action plan iyo mental health waa dhibaatooyinka caafimaadka maanka iyo ka hortagga cunsuriyadda marka labadaasayto waxay ahayd waxyaabihii noogu muhiimsanaa anyway waxaan 2019kii bishii July 31st ayaa waxay kulligoodoo dhamboorkii oo booliiska oo Toronto ay isku wada waafaqeen inay nala shaqeeyaan marka Shamsu aan ka dhex galo arrinkii ahaa in la fahmo mashaqadiina inaad booliiska wax soo sheegtaan bise waa shaqada booliiska in iyagu wax ay baadi goobaan xagee baad isku timaadeen taas sida dadkuna ay u fahmaan markii aan arrimahan qodobadan aan qoraynay ayaa waxaa jirtay hooyooyin badan oo ay dhaheen ilmahooda inta soo waceen hooyo ma waxaad annagaadna rabtaa inaad rufiyaantid marka booliiska waxaan si cad oo qalinka madowga aan ugu duugnaa waxay ahayd inaanan annaga waxba idiin soo ruufyaameynin adinka aa shaqadiina qabsanaysaan laakiin waxa aan sameynaynaa waxay tahay in isbarasho ama isfaham oo booliiska iyo dadka deegaanka jaaliyadda inay isfahmaan oo jaaliyadda meesha degan ay ku dhiiradaan inay dhahaan dhibkaana ay haysta jaaliyadda ay ka timaado annaga maya annaga waxaan si cad ugu sheegnay waxbana idinma soo ruufyaamayno oo perpetratedna ma nihin ilmaheennana kuma nihin shaqadiina adinka waaye booliiska macnaheedu waxaa waaye protect and serve 500 bay ka badan yihiin dhalinyarada Toronto lagu dilay ilaa 200 way ka badan yihiin ayaan maqlay inta aan kiisaskoodii wali aan la dhamaynin taas ma jirtaa sax waaye waxaa ka mid ah wiilkayga oo kale toole waxaa ka mid ah wiilka Kowsar oo kale toole markii aniga tirada koobka aan haynay waxay ahayd 250 canug oo aan la solve gareynin la helin qofkii dilay loona xirin
laakiin haddeertaan sidii aan saxiixaasita aan u samaynay runtii waxaa jirta maxkamadihii waa isbedeleen kuwan oo ma aqaan af Soomaali wax lagu yiraahdo detective-ka dambi baarayaasha xataa sidii wax u baari jireen ka fiican haddeertaan u baaraan markii I think Kowsar inaan soo qaadan karo keeskeedii anagoo tacsidii u fadhino in uu dambi baarayaha noo yimaaday oo yiri wiilkaaga nacam wax si aan habooneen uu nugula dhaqmay inuu hooyadii wici karo oo meel intii istaajiyo uu rabo weydiin karo laakiin inuu groupkii naagay dhexdooda dhan kulii weydiiyo waxay nala noqotay wax qalad ah runtiina markaaseeto ayaan waxaan bilawnay in aan annaga naftirkeena ismuujino oo aan raahno booliiska waxa ay ku dhaqmayaan qalad waaye haddeertaana waxay noo ogolaadeen waxa waaye qaybta college-ka ah in aan annagana part of tababarayaasha booliiska tababaraya aan ka mid noqono oo aan markay before intaysan qalin jabinin oo annaga aan u tagno oo aan raahno qodobkaaneeta iyo qodobkaaneeta iyo qodobkaaneeta aan idinku haysanaa inaynan guryaha iska soo geli karin guryaha haddaa soo garaacdaan dad muslimiin aan nahay xijaabyadeenaan u baahannahay markii canuga naga dhinto waxaan u baahannahay si edab iyo akhlaaq ku siman tahay inaad noola dhaqantaan oo albaabka inta soo garaacdaan hooyadii aad fariisisaan oo si edab la ula hadashaan not albaabkii inta hooyadii furto your son he passed away my waxa waaye bila akhlaaq waa bila xushmo waa bila ixtiraam marka intaasoo dhan waxay noqotay inaan maaragtay aad uga soo yareenay dhibaatooyinkii kale toole ee booliiska xataa ay nagu hayeen investigationko kale marka la sameynayo kale toole in qaybo la weyn jiray taasanitan runtii aad iyo aadaan ayaan uga doodna hadda waxaa moodaa inaan focus hooyooyinkii aan more aan tababarnay Yusuf inkastoo ay xanuun tahay inaan ku xasuusiyo adiga shakhsi ahaan waa wiil aad dhashay ayaa la dilay bal waxaad nooga warantaa da'diisu inta ahayd siday wax u dhaceen iyo kiiskii halka uu maray aniga naftirkeyga waxaan ka mid ahay aabayaasha dulmanaha ah ee lagu dulmiyey caruurtooda halkan laga dilay wiil aan dhalay waxaa jira hadda 2000kii la dilay 5 sano ka hor waxaa lagu diray magaalada Winnipeg gobolka Manitoba wuxuu ahaa 21 jir aan islahayn maaragtay haydin aas markaa dhimataan waxaa ugu xun moogtay qofka isleed adiga ku duugo oo 20 jir ah ama 22 jir ah in adiga soo aasto nimana waxay ku dileen meeshaas sababtana kulli markii aan booliiska iyo wareysanay badana waxay sheegeen in niman ay saaxiibo ahaayeen ay is-afgaran waa ka dhaxdhacay kadibna ay maaragtay ay toogteen waliba asoo meeshaas muddo 10 cisho deganaa magaaladaas noloshiisa dhan waxay deganaan jiray halkan 10 cisho halkaas deganaa 10kaas cishana wuxuu ku waayay naftiisa nasiib wanaag nimankii dilay wiilkayga waa la soo qabtay waana la xukumay waxaana la siiyay life in prison marka xabsigay ku jiraan ma Soomaali bay ahaayeen mise dad kale oo ajnabi ay ahaayeen maya waxay ahaayeen dad ajaanib ah Yusuf dadka imika degan magaalada Toronto oo aan qaar ka mid ah la sheekaystay waxay ii sheegeen in imika ay xaaladdu ay sidii hore ka soo reynayso adigu saas ma qabtaa maxaad si kalifay 100% alxamdulillah mar kale dadkana dhageysanaya ku xiran waa salaamaya waxaan baranay maalin waxba la bartaa systematically annaga markeen horeba hadda maadaama aan videogan duubayno waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fariintan dhibaatada badana waxay kowa ka soo bilaabataa iskuulada waxaan rabaa hooyooyinka iyo aabayaasha daawan doona inaan u sheego waxaad arkaysaa caruurtii iskuul geynaysaa A+ ah 9 haysta 98 haysta cunugiyo fiican waxaa laga yaabaa in macallin racist ah ama xun ama principal xun inuu ku dhaco caruur badan waxaa jirta iskuulka ayagoo ku maqan waalidiinta telefoon loo soo diraa waxaa la yiraahdaa wiilkaaga leed buu ahaa ama gabadhaada leed bay ahayd ama xiisadaasay buuq bay galaaska ka kicisay caruurta intay iskuulka ku jiraan telefoon waxaa loo soo diraa guriga caruurta iyo waxaa la isku diraa reerka caruurtii markay soo rawaxdo 2 duurnimo ama 2 barka ama 3 caruurtii waxba halaynin ay waalidiinta waxay kala dul dhacaan wixii uu u sheegay macalinka oo ah wax aanan jirin
way nagu adkaatay berigii hore inaan ogaano parent interview kala markaan tagno oo iskuulada la xiraayo kale oo macallimiinta aan la fariisano cunugaaga waxba haleen hadii lagu dhaho waa low waxba ma ahan wadaha dagaal buu kiciya lookarku ku daha spear buu heesta cunugaaga isla socoteen iyo adiga waxa iimaanaysaan kala socdo marka waalidiinta waxaan kula talin lahaa wax kasto oo macallin idin sheego wax kasto oo qaf cunugaan dhalin oo ku sheego hortiisa cunugaaga ku canaanan waatahay laakiin ma jirtaa Yuusuf inimika jaaliyada Soomaalida lafteedu iyo waalidiintii ay fahmeen inay arintan ka hadlaan iska kaashadaan ay raadiyaan xal oo taas lafteedu ay qayb ka tahay in dilkii dhalinyarada Soomaalidu soo yaraado waxaa jira hooyooyin isku tagay is aruursaday oo la yiraahdo Mandin Crack in the Sky hooyooyinkaas oo runtii sida hadda sheegtay alxamdulillah dilalka waa naga yaraaday dhibti way naga yaraatay Cabdixaafid waxaana moodaa inay nasiib gudbayso ilaahayna ha nasiib gudbiyo hooyooyinkaas iyo aabayaal badan oo dadaal badan sameeyay iyo Soomaalida oo hadda aad isugu gurmata Kawsar haddii aynu eegno jaaliyada Soomaalida ee ku nool Toronto amaba ururkan mideynta markii arrinkaasi dhacay arrin adag buu ahaa sidee ayay ku caawiyeen horta run ahaantii geeridu markay dhacdo labana ay kugu noqoto waliba markii hore waaban iska adkaysanayay kii hore guriga waan iska yara xamili jiro waan maadaragtay ciyaalkan iska laakiin kii labaad adduun meel aan jiro isma ogeyn marka gabadhan oo Shamsa la yiraahdo gabadh kale oo Shamsa kale la yiraahdo iyadana Sahro maxaan dhadaayay adu group dhan ayaa ii iman jiray guriga iga soo kaxayn jireen halkan ay keeni jireen wixii la soo qabanayo haday tahay booliis haday tahay maxaan dhadaayay wixii marka loo baahnaayo dhan ay ila soo qaban jireen marka kadib ba halkan aan iman jirnay soo marka gurigii jeero aan nacay oo aan gurigii ma aragtay halkan wallahi markay hadlayaan hadalkay ku hadlayaan xitaa maan maqli jirin kursiga halkaas aan ugu gami jiray cuntada iga xirantay yaani waxaan noqday yaani qof aan adduunyada ba aan ma aragtay aan joogin soo marka alxamdulillah hadaanan iyaga heli lahayn yaani guriga waa mar walba waan ka soo carari jiray waan iman jiray iyaga soo kaxayn jiray يعني إن نختار قلو إن ما عندركتي عن عاد وقت بانو دبعتو ده يعني وحن إلهي أون لوشك تما قرنا يسا but الحمد لله I'm good ما حد ذا ده ما شاء الله وان يعني وحن هذا دمر كان لعنتون ما دركتي dad badan oo waxaan arkay hooyooyin badan oo waxaan arkay wallahi ila mida ama maxaan dhadaayay hal xabal laga dilay oo dhibaataysan oo guri ka soo bixin oo wallahi imka mental ah marka hadaad u fiirsato yaani markan guriga imka aan joogo yaani sala iga soo saaraa way adag tahay because waxaan noqday qof aan awood waxaan lahaan jiray businessyan lahaan jiray stereo baan lahaan jiray physiotherapy lahaan jiray qaaxida xaraf la yiraahdo lahaan jiray you know yaani waxaan ahaa qof shaqaysata oo active oo ma aragtay cararta wixii oo dhan waxaan noqday يعني قف عن يعني أودي أقدر كتكتي مركا محمد الحمد لله سربت كو أروريسا واحد نقص استرس باكو دعاية عرورتي حتى الكليك كوتشو كتيب أنا دحبه وقبل كرين يعني لايف كي ولما بتكاسو حر ما يسا سو الحمد لله هذانا دوانا جا كنول مركان هذانا عرقنا هو يكلو أما ده قف كله هذانا استرس كوكوسي كعيا دبتي باكو توك عيسى مركان هو يكلو وحلا قد لا دركتو هل كي بس هذانا كبلا بيسا ما قرنا يسا سو الحمد لله ده واحد نقطة noloshan Canada lagu nool yahay waxaan ula noolnahay iyada dad badan baan la qabo oo qurbaha jooga hadii London noqoto hadii Mareykan noqoto naga badaran iyaguna soo alxamdulillah Sahro qodob baa doonaysaa inaad ku darto in anaga waa shirarkeeni badnaa ee aan qabano hooyooyinka
iyo la kulankii booliiska RCMB-da militariga maayarka waxyaabihii guusha ah ee nooga soo baxay aan rabaa inaan ka hadlo marka ugu horeyso waayo intaasoo dad markay midayntana garab nagu siisay nooguna yeertay shirar oo aan u tagnay dhibkeena iyo wixii nagu dhacayna aan ka hadal waxaan maayarka tuurow warqada noolagu qoray midaynta noogu qoreen oo dhibkeena aan anaga qabno ay ka hadlayaan marka raggii aan anaga u tageynay oon la wada hadlaynay maalin waxaan xasuustaa si gooni aan ula baxnay RCMB-da nin madaxa oo Chinese wuxuu yiri hooyooyinka dhib badanaad soo marteen laakiin wuxuu yiri ka waranoo yiri when you sit over there and shut your mouth nobody knows your problem marka waa in laga hadlo dhibaatada oo aad la wadaagtaan iska fariisato qof ka warqabta malaha laakiin hadaa dibadda u baxdo yiri ee aqayla dhaamiso cid kasto way ku fahmi inaad dhibaataysan tahay maanta hadaa hooyooyinka tihiin banaanka u soo baxdeen at the same time dhibkiina ka hadasheen waxaana jecelnahay oo yiri inaan wax idiin qabano wax qabashadoodina waxay noqotay ilaa dadka anaga la kulmeyno oo la hadlayno oo dhan aqoon uma lihin laakiin waa boorki booliiska dhan oo Torone raggi madaxdu ahaa waay oo markii go'aaman iyo adduunyo la gaarayo u fariisan jiray ee go'aamada soo saari jiray ilaahay wuxuu noogu gargaaray qodobadii ay soo saareen waxay ahayd qodobo aad u wanaagsan oo anaga aad noo anfacay Kawsar mar kale aad ayaad u mahadsan tahay Kawsar maxaad tala siin lahayd waalidiinta Soomaaliyeed sidii ay dhalintooda uga caawin lahaayeen sidii ay soo ilaalin lahaayeen maxaad hooyooyinka iyo aabbayaasha Soomaaliyeed oran lahayd haddaan anigu my experience-ka aan ka helay midaynta khibradda aan ka helay yani dhibaatooyinkana soo maray ama midaynta hooyooyinkan isku imanaya yani fikraddan markii hore aan guriga joogay qabay iyo fikradda aan markaan soo baxay aan bartay iyo waxyaabaha iyo difference-ka iyo iyalku say u dhaqmaan iyo booliska iyo annaga dhaqankayaga aan iska hurudnay iyo waxaas oo dhan waxaanu nahay ma aragtay layer wax badan baa u dhaxeeya soo marka maxaan dhadaayay anigu halkan haddaan hadalkayga hooyooyinkan doonayeen inaan advice siiyo ayaan ya aabayaashaba hooyooyinku waa hooyo ama inankeedu waxa dilo ama inankeedu hal laga dilo waxa weeyaan carruurtan yar waa carruur yar oo qaarkood iskuul ahaayeen xaafad iyo xaafad isku dilay يعني dhibaato yaro aynu xalil kari lahayn aynu hooyooyinka hadaynu nahay qaarkood aynu ka seexanay ma garanaysaa ama aynaan doonayninba inaynu yani aad ilmahaagiyood ogtahay wuxuu ku jiro aanad sheegaynin oo inaysan ku yahay kiyo ay arkayso haday doonto baaskoolad ku aragtay ayaanay hooyadii sheegaynin ama aanay maagaynin ama aanay boolis u dhiibaynin yani waxaan wuxuu sitaa waa baaskoolad ilmo kalunbu ku dilayaa ma hadaba aragtayba inuu baaskoolad sito soo waxa weeyaan aynu iscaawino aynu wada hadalno aynu isu nimaadno aynu ka wada hadalno aynu isu soo baxno yani wax weyn baynu taransanayna hooyada kale ee ay ku dhacayso wax badan bay u taraysaa hooyada ay ku dhacday wax badan bay ii tartay anigana ma garanaysaa kala soo socotana waan u tagnaa waan dhibaatadaan ula qaybsanaa maxkamadaan ula qaybsanaa yani maxaan dhadaayay waan iscaawinaa run ahaantii marka laga hadlayo marka aragto qof garabkaaga taagan wax laga yaabaa inaanay walaalahay iyo dadkaygii ay magaaladaba ka maqan yihiin laakiin ii garab ii noqday dadkii maxaan dhadaayay aanu isku noqonay ma aragtay isku case-ka noqonay soo marka waxa weeyaan aynu talaga dilay iyo wax laga dilay iyo ta u soo socotaba waa xabad sugtay aynu iscaawino aniga taas waxaan anigu hooyooyinka waxa ka daran haddaan hadalkayga dib ugu noqdo mid waa u dhintayba kii dhintay waad ka samiraysaa alxamdulilah waqtigay doontaha kugu qaadato aad waalatid bixita laakiin wuu dhintay weeyaan waxa weeyaan halka waad ka seexatay laakiin dhibaatada kale hooyooyinka haysta waxa weeyaan kuwii noolaa
ayaa qaarna stress guryaha u jiifa yacni inta inan yar ee guryaha jiifa een shaqo tegin ee iskuul ka hadhay ee aan maxaan dhadaa nolol haysana baqanaya حتى هو يد لفتي إن دبتين كعافمات كمان كيدي لسه درسان marka waxa weeye hooyadii iyada oo ilmihii laga dilay ayaa waxa kaga sii daran xanuunka ilmaha guriga u dhex jooga iyo iyadii waxay wada noqonayaan labadooduba way xanuunsanayaan gurigii kama baxayaan ilmihii wuu baqanayaa sidoo guriga ugu jiro waxa ku imanaya depression xanuun mental ayaa ku imanaya baqasha imanaysa adigiiba markuu baxayo xagee tagaysa xagee u socotaa adiga ilmihii ba xitaa isnacaya ma garanaysa soo waxyaabo badan oo hooyooyinka ay la dirisaan oo aanu yacni annaga nala soo dirisay oo aanu ma aragtay aan haddana la dhilgarayno oon u soconno ayaa jirta marka waxa weeyaan aynu iscaawino shamso maxamed cilmi kawsar cali ismaaciil iyo sahro geele oo dhammaantiin hooyooyina aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahay subxaana watacaala cawil khayr qaba ha idinku bedelo samirka aad samirteenna ilaahay dhammaantiin jannada ha idinku geeya biidni illaahi tacaala intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ahaa iyo barnaamijkeenii aynu la yeelanay hooyooyinka ee magaalada Toronto Shamsa iyo Kawsar iyo Sahra iyo dhibaatooyinka dhalinta Soomaalida ee siyaabaha kala duwan adigu ay dilka ugu yimaado cabdi xaafid cawil ismaaciil ayaan ahay inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raalli ka noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh